gudoomiyaha degmada Togwa Jaale Engineer Shiina Cali Muuse ayaa maanta ka warbixiyay mashruuc ay ka bilaabeen magaalada Togwa Jaale oo kor loogu qaaday bilicda guud ee magaalada Togwa Jaale. mashruucan oo ah dhir lagu beerayo hareeraha laamiga iyo guud ahaan magaalada Togwa Jaale si kor loogu qaado muuqaalka iyo bilicda ay leedahay magaalada Togwa Jaale ayaa waxa gudoomiyaha degmada Togwa Jaale Engineer Shiina Cali Muuse oo maanta hawsha ka bilaabay wadada laga soo galay magaalada Togwa Jaale oo sheegay inay u qorsheysan tahay inay ku beeraan magaalada Togwa Jaale 2,000 oo geed. waxa kale oo gudoomiyaha intaas ku daray oo baaq u diray dhammaan shacabweynaha ku dhaqan magaalada Togwa Jaale waxaanu ka codsaday inay kala shaqeeyaan kor u qaadida bilicda guud ee magaalada Togwa Jaale. gudoomiyaha magaalada Togwa Jaale Engineer Shiina Cali Muuse oo amurtaasi ka hadlayna waxa kamid ah hadaladiisii. waxaan doonaynaa in maanta halkan degmada oo maanta bilownay aanu ka beerno ilaa 2,000 oo geed aanu ka beerno gudaheeda iyo dibadda maanta meesha aanu ka bilowno waxa weeye halka laga soo galo degmada Togwa Jaale oo dhow controlka ayaan maanta ka bilaabaynaa waana nuudanaa ilaa iyo magaalada gudaheeda. waxa kale oo halkan baa uga dirayaa dhammaan shacabweynaha reer Wajaale oo aan leeyahay maanta anaga ka maamul ahaan anaga dhirteeda siinayna qof waliba waxaan jecelahay inuu dhirta ka beero gurigiisa hortiisa si informative inoogu fiicnaado iyo quruxda iyo wanaaga ay magaalada leedahay. haddii aynu ka wada shaqeyno dadaal baa lagu wada jiraa. dadaalkaas waxa weeye degmo kasta iyo gobol kasta wuxuu ku jiraa tartan. insha Allah laakiin waxaan rajeynayaa degmada ugu qurux badnaata inaynu noqono haddaynu nahay degmada Togwa Jaale meel lagu soo horto meel dalxiis loo yimaado inaynu ka dhigno degmadan. maaha markii uu horeysay Engineer Shiina Cali Muuse iyo maamulka cusub ee horkacaya ay ka bilaabaan mashruuc kor loogu qaadayo bilicda guud ee magaalada Togwa Jaale. hase ahaatee waxay markii uu horeysay ka bilaabeen Togwa Jaale ee ku yaala xuduudka labada dal u dhaxeeya inay ka guraan qashinkii buuxdhaafiyay isla markaasina halkaas dhir ku beeraan. waa wariye Cabdikariin Maxamed Cabdi Qaamuuska shabakada caalamiga ee Gabley News.net magaalada Togwa Jaale.